Nabi Ayuub 18 sano bukaan ahaa geed hoos jiifay marna Ilaahay taacadiisa iyo digrigiisa ma daynin malik nabi rasuula walla ikhtibaaray todobadii habloodu lahaa mar kaliya laga wada dilay oo nafta laga wada qabtay iska sabray todobadii wiil lahaana mar kaliya israaceen oo iska sabray baarihi iyo tijaaradii xooluhu lahaa oo dhan mar kaliya laga qaaday oo iska sabray markaas jidhkiisa waliba xanuun lagu riday oo iska sabray xanuun nuucaya gaadhay waxa la jirkii intuu dhamaaday hariga iyo lafahaas ku dhagan bas markaas wax ehela waxa uu soo hadhay xaaskiisii markaas qaraabadiisii ku yiraahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama anagu aan kaaga baxno may ana inaga fududo inaga tagay buuri ay tukubisay banaanka bay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ay culimada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tagaysay magaaladay u soo noqonayso dadkii u shaqeyn jirtay aqaladay ka shaqeyn jirtaa leeyahay wixii mushqaayad la soo siiyay intay soo ugu soo iibiso khubz ayay iyo idaam ayay markaa nabiga ugu keenin jirtay geedka hoostiisa markaas ay ku tiraada Ayuubow xanuunkan halka ku gaarsiiyay in ummadii iyo dadkeenii ay banaanka inoo soo tuuraan nabi ducadiisa la aqbala ayaatahe ilaahay ma noo baridaha ka qaada xanuunkan oo dadka ku dhex noqonay markaa buu ku yiraahdaa 7 sano barwaaqo ku soo jirnay ma inta yar baan u adkaysan kara laanahay buu yiri barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysana ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacdo ayaa badan midka badan nicmada badan marka anbiyadu nicmaday eegeen mar walba dadna muncimka marka way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen marka abu xaaskiisa ku yiri 7 sano barwaaqo ku jirnay ma muddada yar baan u adkaysan kara laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalmaha kamida labadii dad isaga ugu dhaweeday qaraabadiisa ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yiri mid baa yiri marka war u dhawaanay meeno xanuunkiisa inuu nagu soo tacaadiyaan ka baqaynaaye malaha dambi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaas oo marka nabi Ayuub uu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurgurtay dadna meeshuu ku xaajoonay markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xagga buu uga dhaqaaqay halka buu marka ku ducaystay baa leeyahay ducadiisana waa tan quraanka ilaahay noogu sheegay fi suurati al-anbiya wa idnada wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin Ayuub alayhi salaam rabbigiiba u dhawaaqay oo rabbigiiba la munaajoodo u qayla dhaan dirto markiiba wuxuu yiri ilaahu aniga dhib baa soo gaadho itaabatee adiguna kuwa naxariista ka ugu naxariis badan baa tahay ilaahu dhibka iga qaad buu yiri ilaahay markiiba ducadiisa waa ka aqbalay baa leeyahay halkii uu joogay baa lagu yiri lugtaada dhulka ku dhifo urkud birijlika 18 sano nin jiifay xanuunsanaa awoodda jirkiisa ku jirta ee dhulka markuu haraatiyay biyo uu kaga keeni karaa waa awoodey yani adagu asbaabtii la kaalay weeyaan anaka biyaha soo saaraynay lugtaada yar dhaqaaji bas asbaabtan adduunyadan arkayna oo dhan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira asbaabtan sida jirka bini aadanka ruuxdu ay ugu dhex jirto ayaa asbaabtan adduunka aad arkaysan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira marka nidaamka ilaahay isheenu ma qabanayso qudradda ilaahay baa caalamka maamulaysa lugtii buu nabi Ayuub saa u dhaqaajiyay dhulkuu ku celiyay labada lugood dhexdooda biyo ka soo baxeen baa la yiri laba ilood oo biyo ilna waxa la yiri ku maydho ilna waxa lagu yiri acab oo maydhay jirkiisa waa caadi oo cabay caloosha iyo gudaha wixii xanuunka ka jiro dhanba banaanka uga soo baxay oo soo kacay mar kaliya xaaskiisa magaalada ka timiday way ku wareegtay iyadoo xishoonaysa markaa waxay tiri oday Ayuub la oran jiray oo bukaan ahaa oo muddo 12 sano halka aan la joogay oo maanta aan ka tagay magaaladaan ugu maqnaayo aan u shaqo tagay miyaa dhintay ma dugaag baa qaatay waliba dhalinyarnimadiisiina adigu aad kuugu ekaayo formigiisii baad leedahay
markaasuu yidhi ayuub waa aniga buu ka yidhi ana ayuub ana ayuub ayuubkii aad kaga tagtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii ducaan ducaynay ducadii baa ilaah noo aqbalay buu yidhi istiqaama haddaa dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaaladdu wax daa'ima maaha